kulanti wanaagsan daawadayaal oo markale iyo barnaamijkeennii xog warniyo maanta waa maalinimo Arbaca taariikhduna ku beegan tahay 19 bisha 8 sanadka 2020 qodobada wararka warkeena koowaad aan idigu haynana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb ciidanka gamaad dawsta danab oo hawlgal qorsheysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo shaacisay kiisas cusub oo la xiriira cudurka COVID-19 maamulka gobolka Banaadir oo kulan degdeg ah ka yeeshay amniga magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya oo ku eedeysay maamulka Taiwan inay ku xadgudubtay qaranimada Soomaaliya madaxweynaha dalka Maali oo iscasilay iyo maxkamad la soo taagay in loo haysto dilkii Rafiiq Xariiri ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Lubnaan qodobadaas iyo qodobo kale daawadayaal barnaamijkeena xog warni maanta intaan ku gudashino aad ku maqli doontaan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran subscribe saar channelka gambalka riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe mahadsanid mar kale kulan wanaagsan daawadayaal aan ku bilaabay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa weli ka socda shirar gaar ah oo u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir iyadoo ay kulankaasi ka maqan yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaa ka soo horjeestay howlaha ka socda magaalada Dhuusamareeb iyagoo sheegay in haddii heshiis la gaarayo aysan dalku lahayn xukuumad fulisay isla markaana aysan Dhuusamareeb tagayn ilaa inta la soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa habeeno ka hor shirjiraayad ku qabtay magaalada Dhuusamareeb waxa uu ku sheegay in wajiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb 3 uu furay isagoo ugu baaqay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland inay ka soo qayb galaan shirkaasi wararka aanu helino ayaa waxa ay sheegayaan in saacadaha soo socda madaxweynaha maamulka Puntland Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor uu tagayo magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland si madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ugu qanciyo inuu yimaado magaalada Dhuusamareeb isla markaana uu shirka Dhuusamareeb 3 ka soo qayb galo shirka magaalada Dhuusamareeb ayaa dad badan oo siyaasiyiin ah waxa ay qabaan in aysan ka soo bixi doonin natiijo bedeli karta xaaladda siyaasadeed ee dalka xilli dalku ku jiro waqti kala guura ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee danab loo yaqaano ayaa waxay hawlgal qorsheysan ay ka sameeyeen deegaanka Kandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab saraakiisha hawlgalka hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen in ciidamada ay burburiyeen koobay Al-Shabaab ku farsameeyeen waxyaabaha qarxa sidoo kale waxay sheegeen in hawlgalkaasi intii ay ku jireen ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku guda jiray diyaarinta waxyaabaha qarxa si ay weerar uga fuliyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kamaan dawsta danab oo hawlgal qorsheysan ka sameeyay deegaanka Kandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay ku burburiyeen koobo qaraxyo lagu farsameeyay iyagoo gacanta ku dhigay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo halkaasi ku sugnaa ayuu yiri sarkaal ka tirsanaa ciidanka danab deegaanka Kandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ku yaala wadada dhinaca xeebta ee u dhaxaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Marka ayaa waxa ay ka mid yahay deegaanada ay inta badan ciidamada dawladdu ay tagaan haddana ay ka soo laabtaan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in fayraska corona ay ka bogsadeen 22 qof oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka bogsaday ka dhigaysa ku dhawaad 2396 qof marwuufaysi abika nur wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay cadeysay in la diiwaan galiyay 8 xaaladood oo cusub oo COVID-19 oo kala jooga Puntland iyo Jubbaland taas oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaan galiyay ka dhigaysa 3265 qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeelanayo kusimaha duqa Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda ee gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlayay amniga caasimadda Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay ay weeraro ay ka dhacayeen kulankan ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud agaasiga guud ee amniga caasimadda gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha amniga afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa waxa uu sheegay in kulankooda looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa sugidda amniga caasimadda Muqdisho
ayagoona isla qaatay in howlgallo baaritaan joogto ah laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka lagu dhex wato caasimadda Muqdisho. sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya laga codsaday inay sii laba jibaaraan wada shaqeynta laamaha ammaanka si looga hortago falalka amni darro ee Al-Shabaab ay ka geysanayaan caasimadda Muqdisho. toddobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay weeraro iyo qaraxyo ay waxyeello ka soo gaadhay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dad shacab ah. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeysay maamulka Taiwan inuu ku xadgudbay qarannimada Soomaaliya kadib markii ay safaarad ka furatay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in maamulka Taiwan ay ku xadgudubtay qarannimada Soomaaliya. jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay u taagan tahay sidii ay u ilaalin lahayd dowladdeeda, midnimadeeda, dadkeeda iyo sharafteeda. Soomaaliya waxa ay xaqiijinaysaa mowqifkeeda ixtiraam mabaadi'da awoodda dowlad goboleedyada iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah iyo axdiga qaramada midoobay, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. sidoo kale qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso talaabooyinka laga maarmaanka ah qaanuunka caalamiga ah si loo ilaaliyo midnimada, qarannimada, wadajirka iyo madax-bannaanida siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday Taiwan inay joojiso howlaheeda marin-habaabinta ah ee qayb ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ka wado. weli xoguraba nagala socotaan wararkeena kalena waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Maali ayaa xalay saqdi dhexe ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka kadib markii uu kala diray baarlamaanka saacado kadib markii ay ciidamo ka tirsan militariga dalkaasi ay xireen isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa. madaxweynaha oo xirnaa marada afka lagu daboolo daal badan oo ka muuqdo ayaa iscasilaadiisa ku dhawaaqay khudbad gaaban oo ka jeediyay telefishinka qaranka isagoo jooga xero militari oo ku taala deegaanka Keti oo 15 kiiloomitir u jirta magaalada madaxda dalkaasi. kacdoonka isla xerada Keti ka dhacay sanadkii 2012 ayaa wuxuu siibtay afkambi ay militariga ku rideen madaxweynihii hore ee Maali. Faransiiska oo gumeystay Maali iyo dalal kale oo xiriir dhow la leh ayaa ka cabsi qaba in afkambi lagu sameeyo Keita ay uga sii dari karto colaad hadda ka ogan dalka Maali. midowga Afrika iyo qaramada midoobay waxay cambaareeyeen xariga ay militariga ay u geysteen madaxda dowladda Maali iyagoo amray in si degdeg ah xorriyadooda loogu soo celiyo madaxweynaha Maali iyo ra'iisul wasaarihiisa. ugu dambeynna maxkamadda qaramada midoobay ee gacanta ku hayso ayaa xukun ku riday nin ka tirsanaa maleeshiyaadka Xisbullah kadib markii lagu helay inuu ku lug lahaa dil loo geystay ra'iisul wasaarihii hore ee Lubnaan Rafiiq Hariri. garsoorayaasha dacwadda qaadiyay oo ku sugan Netherland waxa ay sheegeen in Salem Ayash inuu door muhiim ah ku lahaa maqarixii Hariri lagu dilay sanadkii 2005. Ayash oo ah ninka ay maxkamadda xukunka dambiilanimo ku riday iyo xubno kale oo dacwadda kula jira muddo 6 sano waxay dacwadooda socotay iyaga oo maqan. dilka xilligaasi loo geystay siyaasiga muslimiinta Sunniga ka soo jeeda ee caanka ah ee Hariri waxa ay dalka Lubnaan ka abuurtay xiisad siyaasadeed oo aad u weyn. ha yeeshee Xisbullah waxay marar badan ku kacansaday in dilka Hariri ay wax lug ah ay ku lahayd. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeenii xog waran iyo maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran, subscribe saar channelka, gambaleelka riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe. mahadsanid.